Oh, excellent, excellent. Pleasure. Some complicated times. I have to say that the leadership, the progress that you're making is truly important, not just for Somalia, but again, and always stands ready to be there to support everyone. Il y a du beau partenariat avec le Canada, mais évidemment c'est une situation difficile et on le félicite pour son travail. Merci. Il y a du beau partenariat avec le Canada, mais évidemment c'est une situation difficile et on le félicite pour son travail. Merci. Il y a du beau partenariat avec le Canada, mais évidemment il y a du beau partenariat avec le Canada, mais évidemment shirkii madaxda Afrika sanadlaha ahaa magaalada Addis Ababa ayaa maanta ka furmay oo bisha February ay tahay 9 shirku wuxuu soconayaa ilaa iyo berito mawduuca ama halkudhaga sanadkan ee shirka waxa weeye aamusinta qoriga ama oo macnaheedu tahay joojinta colaadaha oo ah arrin si Afrika ay u abuurto jawi horumarkeeda lagu dardargelin karo wafdiga Soomaaliya waxa hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu wuxuu inta uu shirka joogay la qaatay kulamo muhiim ah madax badan oo Afrikaana iyo kuwa dalal kale ka socda madaxweynuhu maanta la kulmay waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Suudaan madaxweynaha Djibouti ra'iisul wasaaraha Norway ra'iisul wasaaraha Canada madaxweynuhu wuxuu dalalkaas oo dhamaantood kuwa saaxiiba kala hadlay si xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo dalalkaas ka dhaxeeya iyo iskaashi ay yeeshaan iyo intii xiriirka oo intii looga sii dhawaado madaxdu iyaguna waxay soo dhaweeyeen xiriir xooggan oo Soomaaliya loo sameeyo waxay Soomaaliya ku amaaneen horumarka ay ka gaartay dhan kasta dhanka dhaqaalaha ama dadaalka loogu jiro deyn cafiska oo dalalka qaarkood ay gacan ka geysteen sida dalka Norway gacan xooggan runtii iyo la dagaalanka argagixisada arrimahaas ayaa laga wada hadlay madaxweynuhu ilaa iyo caaw wuxuu casho uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia sameeyay ayuu ka qayb galayaa kulamada uu madaxda la yeelanayaan oo sii soconaya shirkuna bari ayaa la soo gabagabeynaya madaxweynahana waxa la filayaa inuu bari ka jeediyo khudbo ku saabsan mawduuca shirka iyo noogu warramayo horumarka Soomaaliya ay samaysay ilaa hadda iyo caqabadaha jira intaba